bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wacan daawadayaal halkan waa barteen YouTube-ka ee ka habari qodobada wararkeena waxa ugu waaweyn madaxweyne farmaajo oo qorshe culus ka wada magaalada Dooxa iyo kulan uu la qaatay amiirka dalka Qatar maxay ka wada hadleen xogo ayaan idinkaga hayaa sare u kac xoogan oo ku yimid shidaalka caalamka kadib duulaanka culus ee uu Ruushka ku qaaday wadanka Ukraine iyada oo sare u kacan uu saameyn ballaaran ku yeeshay dalal badan oo ay ku jirto Soomaaliya warbixin ayaan idinkaga diyaarinay wararkeena kalena waxaa ka mid ah madaxweynihii hore ee Koonfur Galbeed Shariif Sakiin oo laga hor istaagay safar uu ku tagi lahaa magaalada Baydhabo qodobadaasi iyo kuwa kale ayaa daawan doontaan waa Axad 6 Maarso sanadka 2022 fadlan daawade haddaad nagu cusub tahay subscribe sar YouTube-keena kadibna fura gambaleelka si wararkan halkan soo dhigno aad u hesho haddaad aragtidaada noo reebto waan kaaga mahadcelinayaa u diyaar garoowa faahfaahinta wararkaasi waa hagaag mar kale kulanti wacan aan ku bilaabo warkeena madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo si diiran loogu soo dhaweeyay golaha amiirka dawladda Qatar ayaa halkaasi kula yeeshay wada hadalo wax ku ool ah amiirka dalkaasi Sheekh Tamiim bin Mohamed Al-Thani madaxweynaha iyo amiirka ayaa isla gartay dhameystirka mashaariicda horumarineed ee dawladda Qatar ay ka wado Soomaaliya iyo dhismaha kaabayaasha dhaqaalaha oo muhiim u ah dib u soo kabashada dhaqaalaha guud ee dalkeena isu socodka badeecadaha iyo dadweynaha horumarinta waxbarashada hoose dhexe ee Soomaaliya iyo dib u dhiska ciidamada qalabka sida sidoo kale madaxweyne Farmaajo iyo amiir Tamiim ayaa kulankooda ku lafaguray arrimo dhowr ah oo ku saabsan aayaha iyo miro dhalka xiriirka labada dal iyo danaha wadajirka ah ee ku aadan xasiloonida iyo horumarka gobolka si loo sii xoojiyo iskaashiga muga weyn ee ka dhaxeeya Soomaaliya iyo Qatar amiirka dawladda Qatar Sheekh Tamiim bin Mohamed oo madaxweynaha iyo wafdigiisa uga mahadceliyay ajiibada martiqaadkii ay u fidiyeen ayaa soo dhaweeyay in dawladdiisu ay door weyn ka qaadato gurmadka abaaraha ka jira dalkeena iyada oo mudnaan siin doonto gurmadka degdega ah iyo xalka waara oo ay ka mid yihiin maalgelinta beeraha xoolaha iyo kalluunka oo fursado shaqo u abuuraya dhalinyarada Soomaaliyeed xalna u noqonaya abaaraha soo laablaabtay ee dalkeena dhankiisa madaxweynaha jamhuuriyadda oo wafdigiisa ay ka mid yihiin wasiirka ganacsiga iyo warshadaha xukuumadda Soomaaliya Khaliif Cabdi Cumar iyo agaasimaha guud ee madaxtooyada qaranka Maxamed Cabdullaahi Ciise iyo danjiraha Soomaaliya u fadhiya Qatar Cabdirasaaq Faarax Cali ayaa uga mahadceliyay amiirka iyo golihiisa soo dhaweynta wanaagsan doorkooda dib u dhiska ciidamada Soomaaliyeed iyo fulinta mashaariicda dhismaha kaabayaasha dhaqaalaha oo si dardar leh uga socda dalka warar hoose oo aan helayno waxay sheegayaan in madaxweyne Farmaajo uu dalka Qatar u tagay laba arin midkood midda koowaad waxaa lagu sheegay inuu dalkaasi u tagay arrimo la xiriira dib u doorashadiisa ama ololaha loogu jiro in markale madaxweyne Farmaajo uu noqdo madaxweynaha Soomaaliya sidoo kale warar ayaa sheegaya in madaxweyne Farmaajo uu Qatar u tagay sidii Mareykanka uu uga la hadli lahaa in madaxweyne Farmaajo uu ka reebo liiska dadka cunaqabateynta la saaray taasi oo dhawaan uu sheegay Mareykanka inuu shaacinayo kadib dagaalkii uu Ruushka ku qaaday wadanka Ukraine waxaa sare u kac xoogan laga dareemay shidaalka caalamka sare u kacan waxa uu saameyn ballaaran ku yeeshay wadamo badan oo Afrika ku yaala iyo adduunka waxa ku jirta Soomaaliya haddaba maxaa ka dhaxeeya sare u kaca ku yimid shidaalka iyo dagaalka Ukraine warbixintan soo socota ayaan idinkaga diyaariyay sare u kac xoogan ayaa ku yimid shidaalka caalamka kadib duulaanka culus ee uu Ruushka ku qaaday wadanka Ukraine iyada oo sare u kacan uu saameyn ballaaran ku yeeshay dalal badan oo xitaa ay ku jirto Soomaaliya marka loo eego shidaalka waxa uu ka mid yahay waxyaabaha ay ku tiirsan yihiin bulshaweynta waana mid qiimihiisa laga dareemo suuqyada lagu iibiyo iyo gaadiidka dadweynaha iyo kuwa gaarka ah gaadiid badan oo ka shaqeeya magaalada Muqdisho ayaa la xareeyay sabab la xiriirta sare u kaca ku yimid shidaalka waxaana kuwa kale ay sheegeen in dib ay ku qabaan beeca shidaalka oo qaaliyoobay
halkii liitar oo markii hore la iibin jiray wax ka yar $1 ayaa markan waxa uu gaaray in ka badan $1. gaadiidka dadweynaha dadka ka shaqeeya waxay kordhiyeen qiimaha ay dadka ku qaadaan waxaana wadayaasha ay inoo sababeeyeen sar u kaca shidaalka. waxaan ahay bajaajleyda ku sugan magaalada Muqdisho sanadkan bilowday ilaa marba shidaalku waxa ku darsamay hadda wuxuu maraa heer meelaha qaarkii ay gaaraan $1 saan meesha u raqiisan hadda waa meesha u jeedin oo saan oo cariiri u tahay dadka qaarkii waxay imaadaan hal saac koor waxaana waa meesha u raqiisan waa liitarka $1 meesha u raqiisan waay meelaha qaar $1.70 senti marka waxa way caqabad ka mid tahay wadanka ka jiro waay xaaladii wax ka saacirka ay tageen oo isku shaqeynayaan waay liitarka shidaalka markii hore qiimihiisa masoo haya sanadkan bilowday mar wax ku darsamay laakiin markii uu hoosay wuxuu ahaa 55 senti ilaa 40 senti oo dhaxay halka liitar hadda mar 70 oo gaaray mar 80 hadda laasiyo maraya oo waxa wiligan arkin waay inta oo ka shaqeynay bajaaj caqabad weyn waxa qofkii oo awal ku raaci jiray meelay qaarkii $1 oo kale ku raaci jiray hadda ay wax ku dar shidaalka qaalo wuxuu ku leeyahay maxay iga galay ku leeyahay macnaha waasna waxa waaye waa iska tuugistay qaarkood caqabad waa iska badan caqabad waa iska badan magacaygu waa Cabshuur Bootan Cali waxaana dhalinyarada ka shaqeysta mooto bajaajka xaaladeena saana ku sugan tahay shidaalka saayid ayuu oo yaamar u qaaliyoobay oo hadda meelaha qaar 130 120 110 waa marka wallahi bilaa shaqadiina xogaan ogtahay waa dad iska xamaalataan oo dadka u daneena muxuu meeyaa hadana shidaalka xogaa saayid ugu noqday ayaamaan wallahi liitarka eebel $1 hada ku shubtid 1 liitar iyo baro ahay haddana $1 xawaaye 1 liitar xitaa ma dhimo waayo 1 liitar 8 senti ka dhiman waxa waaye 1 liitar oo 8 senti maqan tahay 8 senti 20 ka maqan xaaliga magaalada ma ku soo tahay magaalada maya adii qof walba shaqadiisa saas kala Soomaan meel qaar waa 110 meel qaar 120 waay meel qaar 98 waay marka qof walba soo ganacsado waa wallahi bila saameyn saayida hadda maalintii aan wax isticmaali jiray $6 marka u baantahay hadda waxay tagtay inaan $10 isticmaalo maalintii oo kale $4 ay kordhaa si lamid ah dadkii raaci jiray mooto bajaajka waxa ay ku qasbanaadeen in ay raacaan gaari BL ah ama ay lugeeyaan. National TV ayaa la hadashay qaar ka mid ah dadkii maanta maalay cagtooda kadib markii ay awoodi waayeen inay iska bixiyaan lacagta ku saa'iday baabuurta ay raaci jireen. السلام عليكم magacaygu waa Cabdinuur Sheekh Maxamed Cabdilaahi saakiin kasto baawur aan soo raacay ebil mootada soo raaci jirnay mootadii waxaan dhaaday saakiin $2 waayo $2 ma awoodno waayo hadda wadanka xaaladda sidoo yahay waa u jeedin shidaalkina meeshu ka imaanay waan istaagayo wili waa la isku haystaa iskoolka wuxuu ku yaalaa waa bari ilaa inta uu soo lugeynay saakiin hadda waxa ay qorshaysan inaa caas iska raacaan inaa lagu baxsado sidii iska yalaab والله بلا سامين عادي واي قف بني آدم oo hadan bisha la gal waa u jeedaa ee Mars ay tahay wax ka kuleel badan ma lahan awoodda aan ku lugeynayna hadda ay tahay inaan lagu baxsano waay ma awoodna lugna ma rabin laakiin danta lagu qasabto waay danta iyo duruufta waxay ka dhigto waa hareysa kulli hadda waa u jeedaan waxa rajaynaynaa inuu ilaahay wax ka bedeli doono ama rajo weyn aan leenahay insha Allah maadaama oo shidaalka uu kacsan yahay mootaraacu warkeeda ma jiro mootada security $1 bar waxa ku imaan jirnay 15 October hadeertan $3 bar $4 ninka ku naxariisto mootole waa dhalinyaraan ku naxariisto wuxuu ku dhahaa $3 bas kadib hadii kale kuma qaadaan ما موتو ما جرت وركيدا دي إلى صوت صراع لو كنا سكاي ماذا الحمد لله إلهي ونمعي ذلك الشدال كخالي ونقضي إلهي ودن كينا نعوديس الله نفس هذا عيوق أساسا إن سنين الدين كيك الإشكراع ما دام جماعة سمستر كوكدم بي أو قلنا جبينه سامين هذه أدوين وجشتي وايو ماشى هالساعة عم نص ساعة كنت جرتي وعنا غنى ساعة هو ميدا لما ساعة كورينا سو بعيد وايو اللي استاجنا قفا لسارة ولا ردا وعصرنا جرو ruushka waa soo saaraha saddexaad ee naftada waana wadanka ugu weyn ee u dhoofiya gaaska dabiiciga ah Yurub haddaba sidaas oo ay tahay colaadan iyo cunqabateynada la saaray ruushka isbuucii la soo dhaafay waxay walaac ku abuurtay wadamada shidaalka gadanayay iyo bangiyadii la tacaamulayay intaba Soomaaliya iyo wadamo badan oo Afrika ku yaala ayaa kamid ah dalalka sida weyn looga dareemay sar u kaca qiimaha la iibiyo shidaalka oo dunida oo dhan sare u kacay
siyaasiga Shariif Xasan Sheekh Aadan oo ka mid ah xubnaha midowga murashaxiinta mucaaradka iyo ilaaladiisa ayaa maanta laga hor istaagay safar ay ku tagi lahaayeen magaalada Baydhabo oo ah deegaan doorashadiisa. wararka ayaa sheegaya in diyaaradii uu raaci lahaa Shariif Xasan lagu amray in aanay Baydhabo ka soo degi karin kadib amar ka soo baxay Koonfur Galbeed Soomaaliya. siyaasigan ayaa doonayay inuu u tartamo kursiga beeshiisa ee golaha shacabka Soomaaliya kaasi oo uu horay ugu fadhiyay wiilkiisa. sababta loo celiyay ayaa waxaa lagu sheegay in la doonayo in laga reebo tartanka doorashada iyada oo kursiga loo xiray murashax kale. is-hortaaga lagu sameeyay Shariif Xasan ayaa ku soo aaday saacado kadib markii wasaaradda amniga Soomaaliya ay u fasaxday inuu u ambabaxo Baydhabo waxaana loo ogolaaday hub fudud gaar ahaan 3 qoray oo AK47 ah 7 bastoolado balse waxaa talaabadan ka hor yimid maamulka lafta gareen oo soo saaray amarka lagu celiyay. arrintan ayaa dhalisay dood xoogan iyo hadal hayn waxaana si aad ah loogu cambaareeyay madaxweyne lafta gareen inuu Baydhabo u diido madaxweynihii isaga ka horeeyay. inkastoo Shariif Xasan ka mid yahay mucaaradka haddana waa aasaasaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed iyo madaxweynihii ugu horeeyay ee maamulkaasi. si kastaba xayiraada lagu sameeyay socdaalka Shariif Xasan ayaa daba socoto go'aano horey loogu hor istaagay siyaasiyiin uu ka mid yahay gudoomiye ku-xigeenkii hore ee golaha shacabka oo loo diiday inuu Baraabe markaasi tago oo uu halkaasi doonayay inuu ka soo qaato kursigii uu ku fadhiyay. wararkaasi ayaa Soomaaliya xilligan ugu waaweynaa ee nabadgelyo.